الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أيام maalmaha ka mid saxaabadiisa wuxuu weydiiyay ma idin warama buu ku yiri ma idin sheega dambi ilaahi laga galo tabaaraka wa taala midka ugu weyn ama dunuubta ilaahi laga galo kuwa ugu waaweyn. dunuubtu waa kala weyn ayagoo magaca dambigu ka dhaxeeyo ayay hadana kala culus yihiin oo kala foolxun yihiin. kuwa ugu foolxun oo ugu waaweyn ma idin sheegaa buu nabigu sallallahu alayhi wa sallam saddex goor buu su'aasha ku celiyay. kadibna waxay yiraahdeen noo sheeg rasuulka ilaahay. rasuulku wuxuu yiri sallallahu wa sallam alayhi dunuubta ilaahay laga galo waxa ugu weyn wadaajin inaad ilaahay iyo adoomadiisa wadaajiso wixii ilaahay gooni u lahaa, xaqii rabbi gooni u lahaa oo ahaa in la caabudo keligii, oo ahaa in keligii la baryo, oo ahayd in keligii kaalmo la weydiisto, oo ahayd keligii in la cuskado la tala saarto, oo ahayd isaga keligii in taaca mutlaq iyo amar qaadasho la siiyo. xaqii rabbi lahaa khalqi kale markaad wax ka siiso la wadaajiso dambi ka weyni ma jiro buu rasuulku yiri salawaatu rabbi wasalaamu calayh. على الإطلاق ذنب إله لقى كاسا أوين، لأن حقي أقوينا حقوق ذا أي ملك قد عيا هو حق إلهي أدومدي سكوليه وإني عابدان عبادتي سنة أين عدك للو ذات لنا. ذنب قال بعد نبي قحوري صلوات ربي وسلام عليه ذنوب تأقوين ولا بدا والد أو عاقل قلنا قضوه aabihii ku dhalay hooyadii ku dhashay kuwii dhalay inaad caaq ku noqoto. waxa loogu xijiyay shirkiga oo dambiga labaad ee dunuubta ugu weyn looga dhigay quraanka kariimka rabbi wuxuu inugu baray tabaaraka wa taala xaqiisa markuu sheego xaqa labaad waa xaqa labada waalid waa aayada fara badan buu quraanka Allah ku tilmaamay tabaaraka wa taala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نعم حق الله تبارك وتعالى حق قرآن كدبر لغاي مرول بوا حق لبدا والد واي حق صوميل لغا قدعانا ودنبغا لباده ugu weyn dunuubta ilaahay laga galo tabaaraka wa taala. dambiga saddexaad nabigu wuxuu ka dhigay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi labada hore markuu sheegayay nabigu sallallahu alayhi wasallam dhinac buu u jiqilaysnaa uu dangiigay ama uu jiqilaysnaa saani uma fadhiyin. dambigan saddexaad markuu soo gaaray nabigu sallallahu alayhi wasallam si saaniyu u soo fadhiistay markaasaa wuxuu yiri soo jeedsada si fiican u dhageysta baraaruga. dambiga saddexaad inta la isu raaciyay nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam waa hadalka beenta ah ee baatilka ah. hadal been ah oo baatil ah oo waxba ka jirin ayuu nabigu ku sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. markaasuu ku celiyay hadana oo mar saddexaad ku celiyay oo uu waday oo ka aamusi waayay nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ilaa ay saxaabadu u naxaan nabiga sallallahu alayhi wasallam oo u turaan oo ay yiraahdaan laytahu sakat alla mu iska aamuso. yani nabiga sallallahu alayhi wasallam waa u naxeen sida uu kelimada u dul taagnaayo ugu celcelinay ayay yiraahdeen war nabiga yaa aamusiye waa u tureen nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. sidaas daraadeed waa arin culayskeeda leh carabkaagu inuu furmo oo qalinkaagu furmo oo gacantaadu furanto oo xubnahaagu furmaan oo xaq iyo baadil kala garan weydood wax saga ka qasmaa oo wax walba aad iska samayso iska dhahdo. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم
waxa uu isku lamaaniyey rabbi tabaaraka wa tacaala dembiyada markuu inooga digayey dembiga ugu weyn dunuubta oo dhan oo shirkiga iyo alla cidaan ahayn in la caabudo ah wuxuu daba dhigay hadalka beentee baatilka ah fajtanibu rijsa min alawthaan qashinka iyo qurunka oo sanamyada caabudidooda isaga fogaada buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala waxaa kalood ka fogaataan qawla zuur hadalka baatilkee beenta ana ka fogaada xunafaa'a lilaahi hayra mushrikiina bihi idinkoo toosaya ilaahayna aan cid kale la wadaajinaynin waxaa la kala dhex dhigay hadalka beenta xumaantiisa waxaad ku garanaysaa aayadda dambe oo ka digaysa shirkiga iyo midda ka horrayso ka digaysa shirkiga laba jumlo oo labaduba shirkiga ka digayaan baa la dhex dhigay wajtanibuu qawla zuur hadalka baatilkee beentee ka fogaada saas daraaddeed baa aaaarta qaarkood waxaa ku sugan xadiid culimmada qaarkood ay taxsiininayaan inuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh alla wuxuu isku mid ka dhigay hadalka baatilkee zuurka ah iyo shirkiga alla isku mid buu ka dhigay markaasuu aayaddaa akhriyay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa xadiid culimmada qaarkood ay ku tilmaamayeen inuu xasan liqayrihi yahay walaalayaal waxaa laazim ah inaynu aakhiradeenna u baqno waxaa laazim ah inaynu mustaqbalkeenna aad uga fikirno waxaa laazim ah inaan afkeenna iyo adinkeennaba xakamayno waxaa laazima waxaa kaa soo baxaya inaad u fiirsato intaadan ku dhihin intuusan kaa soo filin oo oodan dhihin haddii kale in badan waad qoomamayn doontaa fartana dhexda waad ka qaniini doontaa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamay zuurka iyo beenta noocaas qur-aanka kariimkii wuxuu ku tilmaamay dadka ilaahay addoommadiisa cibaaduraxmaanka ah sifaadka qaaliga ee ilaahay siiya tilmaamaha ay leeyihiin waxaa ka mid a waaladiina laa yashhaduuna azuur waa dad aan beenta xaadirin baatilkana ma xaadiraan afkooda iyo adinkooda iyo camalkooda iyo qowlkoodu baatil iyo been ma xaadiraan kama qaybgalaan goobjoog kama noqdaan tilmaantaasay leeyihiin waaladiina laa yashhaduuna azuur bal zuurka iska badaayay hadal aan macno lahaynoo iska laqwiya hadday maraan ayagoo nadiifay maraanoo kuma wasakhoobaan waidaa maruu billaqwi maruu kiraama sifaadka addoommada qaaliga ee qiimaha leh ilaahay ku tilmaamay taa iyadaa wey zuurku marka wuxuu noqdaa ficilna waa noqdaa oo xubnahaagu hadday baatil ku kacaan waa zuur carabkuna waa sameeya carabkaaga been iyo waxaan xaq ahayn hadduu ka soo baxo oo baatil isagana waa zuur saas daraaddeed buu nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh labadaba ku sheegay xadiidka saxiixulbukhaariga ku sugan wuxuu nebigu uhi sal alla alay wasalam ruuxaan daynin waa soomaya ruux sooman oo aan ka tegin hadalka zuurka ah iyo dhaqanka zuurka ah carabka hadalkiisa xun ee baatilkaee beenta ah falka xun ee xubnuhu samaynayaanee baatilkaee khaladka ah ruuxii aan ka tegin soonkiisa waxba kama jiro inuu oomo iyo inuu haraado iyo inuu gaajoodana ilahay waxba ku fali maayo waxna ka siin maayo waxba ku siin maayo sidaas daraaddeed diintani waxay u soo degtay walaalayaal in wixii danteennu ku jirtana sameeya layna yidhaahdo wixii maslaxadeednu ayna ku jirin oo alla necab yahayna in laynaga xakameeyo oo laynaga qabto ruuxa mu'minkana waxaa la doonayaa inuu amarkana fuliyo wixii ilaahay ka reebayna uu ka istaago wa hada huwa aliimaanu waalislaam iimaankiiyo islaamnimada laga hadlaya taa iyadaa way waa in xumaanta lagaa reebayna aad ka istaagto wanaaggana aad ku tillaabsato way wixii lagu amrayna inaad samayso way sidaasaad ku tahay addoon ilaahay ateecsan tabaaraka wa tacaala oo u hoggaansan nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ahaan jiray markuu salaada subax tukado saxaabaduu ku soo jeesan jiray dadka uu tujiyey iyo saxaabaduu ku soo jeesan jiray markaasuu wuxuu dhihi jiray yaa xalay wax riya ah ku riyooday haddii nin riyooday uu jiro riyaduu sheegi jiray kadibna nebigu waxbuu ka dhihi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaa caadada u ahaan jirtay buu maalin maalmaha ka mida su'aal u weydiiyey markii salaada subax la tukaday wuxuu ku yidhi xalay yaa wax riya arkay waa aamusnay buuhi saxaabigu markaasuu nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam anaa riyooday xalay waxaan ku riyooday buuhi nebigu sal alla alay wasalam laba nin baa ii yimid
gacantay i qabteen waxay ii qaadeen oo ii kaxeeyeen al-ard al-muqaddasa dhulkii barakaysnaa meesha markay i geeyeen waxyaalo cajaa'ib leh buu nabigu ka sheekeeyay sallallahu alayhi wasallam oo riyadiisa uu ku arkay wa ru'ya al-anbiya'i wahyun riyada nabiyaduna sideedaba riyada aadamaha kala lamid meehe waa wahyi waa shay xagga alla ka yimid oo xaq awey riyada aadamaha kale ee marna shaytaan ka timaadna marna sheekada nafta ka timaadna marna malaa'iktu keento saddexda u qaybsanta ma aha riyada anbiyadu waa wahyi nabigu waa riyooday salawaatu rabbi wasalaamu calayh ajaa'ibta habeenka la tusay waxa ka mid aha nin fadhiya mid kala dul taagan midka dul taagani wuxuu haystaa bir qalloocan oo afkeedu qalloocan yahay oo birahan hilibka la suro kawaanada hilibka lagu iibiyo yaale ee hilibka laga laalaadiyo bir noocaas uu haystaa midka taagan mid fadhiyo hoostiisa fadhiya birta qalloocan intuu qalka ka geliyo ayuu dilaacinayaa ilaa uu qadaadka ka gaaro haddana dhanka kale uu soo wareegayaa intuu qalkan ka geliyo ilaa qadaadka dilaacinaya intuu kan ku mashquulsan yahay kan dambe ee uu dilaacinayo kii dhankane markii hore uu dilaaciyay baa sii bogsoonaya kan markuu dilaaciyo haddana kan u soo noqonaya sidii waa kale ku sameynaya kan intuu ku mashquulsan yahay haddana kii baa bogsoonaya haddana waa ku soo noqonayaa sidii buu u dilaacinaya sidaasuu ku jirayaa ilaa qiyaamada laga gaadhayo nimankii i waday baan weydiiyo waxaan idhi buu yidhi warkankadeedan ee sidan loo ciqaabayaayo muxuu ahaa waxay igu jawaabeen dabcan labada nin ee wada waa laba malag oo rag isu soo ekeysiyey aadama awal waxay ku yidhaahdeen ninkan ruuxan sidan u ciqaabani wuxuu ahaan jiray nin been sheega beenta markuu sheegana waa laga xambaari jiro waa laga qaadi jiray markaasaa jihooyinka lagu kala faafin jiro meel walba la gaadhsiin jiray maadaama uu beenta abuuri jiro baatilka abuuri jiray kadibna la faafin jiray sidaasaa loo ciqaabayaa ilaa qiyaamada laga gaadho haddii qiyaamo la gaadhana xaalku waa xaal aakharo way maanta waxaa isweydiin le waagaas warka waxaa lagu faafin jiray turuq bidaa'iya ruux baa qaadi jiray warka wuxuu gaadhsiin karana dad kooban bay ahaayeen ama ruux ama koox meel joogta ama in meel fadhida yuu warka gaadhsiin jiray maantase waxaa dhacaysa qaabka bini aadamku isugu xidhmay halkii war ee la sii daayay inay dhegaystaan malaayiin basharka ka mida oo qaaradahoo dhan ku nool idaacad buu fadhiyaa been buu sii daynayaa yaa dhegaysanaya malaayiin baa dhegaysanaysa shaashada telefishinku hor fadhiyaa been buu sheegaya baatil iyo zuur buu ku warramaya markaasay aafaaqda oo dhan bay gaadhaysaa hal mar baa waxaa dhegaysanaya khalaa'iqan xasri lahayn goobaha aadamuhu ku xidhiidho iyo mawaaqicdan tawaasulka dadku ay ku xidhiidhaan ayuu ku qorayaa ama cod ahaan u gelinayaa whatsappku gelinayaa facebookku gelinayaa fiberku gelinayaa aymugu gelinayaa waxyaalahan bini aadamku hadda ku tawaasulo ayuu kelimo iftiriya been gelinaya markaasaa hal mar waxaa daalacanaya khalaa'iq aan xasri lahayn waagii hore intay gaadhi kartay way koobnayd maanta si xaalku halkaasuu gaadhsiisay